boqor Salmaanka dalka Sacuudiga ayaa telefoonka kula hadlay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan si ay uga wada arrinsadaan baaritaan wada jira oo lagu sameynayo arrinta wariye caan ah oo u dhashay waddanka Sacuudiga kaasoo la waayay meel uu jaan iyo cudub dhigay wariyahaasi oo lagu magacaabi jiray Jamal Khashoggi ayaa waxaa markii u dambeysay lagu arkay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga dowladda waddanka Turkiga ayaa sheegaysa in wariyahaasi lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul balse Sacuudiga ayaa arrinkaasi beeniyay madaxweyne Erdogan ayaa tan iyo markii la waayay wariyahaasi ugu baaqay Sacuudiga inuu runta ka sheego arrinta wariyahan oo maqaaladiisa iyo wareysiyadiisuba aad ugu dhaliili jiray xukuumadda waddanka Sacuudiga boqor Salmaan ayaa Erdogan u sheegay in waddankiisu uu xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo waddanka Turkiga aanayna dhici karin in cid kale wax yeesho xiriirkaasi wanaagsan ee soo jireenka wariyayaasha ayaa sheegaya in hadalka boqorka uu ka dhigan yahay in xukuumadda Sacuudigu ay doonayso in arrintan ay u hesho xal diblomaasiyadeed Sacuudiga ayaa wajahaya cadaadis caalami ah waxaana wadamada Jarmalka Britain iyo Faransiiska ay ku baaqeen in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo arrinta wariyahaasi Jamal Khashoggi warmurtiyeed ay maalintii Axaddii si wada jira u soo saareen wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka Ingiriiska Faransiiska iyo Jarmalka waxa ay ku baaqeen in baaritaan lagu ogaanayo cidda ka dambeysay Mr Khashoggi in la sameeyo iyaga oo sheegay inay soo dhaweynayaan baaritaanka sida wada jirka ah ay u wadaan dowladaha Sacuudiga iyo Turkigu baaritaanada kadibna ay ka soo bixi doonaan in Sacuudigu si buuxda u qaato mas'uuliyadda wariyaha la leeyahay madaxweyne Trump ayaa markii horeysay sheegay in Mareykanku uu ciqaab adag marsiin doono Saudi Arabia waa hadii uu yiri la xaqiijiyo boqortooyada Saudi Arabia inay mas'uul ka ahayd dhimashada wariye Jamal Khashoggi waxa uu sheegay inuu aad uga xumaan doono ugana caroon doono haddii ay arrintaasi dhab noqoto hase yeeshee waxa uu meesha ka saaray inuu hakin doono qandaraaska military ee ballaaran ee Mareykanku kula jiro boqortooyada taasoo uu ku sababeeyay haddii la joojiyo qandaraaskaasi ay dad badan ku dhici doonto shaqo la'aan wakaaladda wararka ee Sacuudiga oo soo xigatay xubno sarsare oo boqortooyada Sacuudiga ka tirsan ayaa waxa ay qortay in boqortooyada Sacuudiga ay iska caabin doonto waxyeello ama tallaabo kasta oo dhan walba uga timaada oo la xidhiidha eedda dusha laga saaray ee wariyaha la leeyahay oo ku dambeeyay qunsuliyadda Istanbul waxayna boqortooyadu sheegtay inay jawaab culus ka bixin doonto tallaabo kasta oo lagu soo qaado maadaama dhaqaalaha Sacuudiga uu saameyn xoog leh uu ku leeyahay dhaqaalaha dunida wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Sacuudiga Amir Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz ayaa waray ka soo xigatay wakaaladda wararka ee waddanka Sacuudiga maalinkii Jimcihii waxa uu sheegay inuu yiri boqortooyadu waxa ay sidoo kale danaynaysaa in eedaha ah inay amartay dilka Khashoggi ay yihiin kuwo aan sal iyo raatoona lahayn ila wareedyo ka tirsan ciidamada ammaanka ee waddanka Turkiga ayaa warbaahinta u sheegay in saraakiishu ay hayaan caddayn maqal iyo muuqaal oo qeexaysa in Khashoggi uu wax ku qori jiray wargeyska The Washington Post lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga ninka lagu magacaabo Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay in Saudi Arabia aanay wali la shaqeynayn dambi baarayaasha waxa uu ka codsaday inay la shaqeeyaan baarayaasha una ogolaadaan saraakiisha Turkiga inay gudaha u galaan qunsuliyadda maruu arrinkaasi ka hadlayay waxa uu yiri sida aad la socotaan xoghayaha guud waxa uu bilaabay baaritaan aad u weyn oo aan wali dhammaanin hay'adaha laamaha sirdoonka iyo dhammaan ururada danaynaya hawshan ayaa gelaya baaritaanka dad qaxoonti ah oo u dhashay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee waddankaasi Congo oo ka soo qaxay waqooyi bari ee dalka dariska la ah ee Angola ayaa sheegaya in dhibaato ba'an loo geystay dad ka shaqeeya qoditaanka macdanka dad goobjoogayaal oo halkaasi isaga soo cararay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamada ammaanka ee Angola ay laayeen dhowr qof oo rayid ah gubeen guryo badan isla markaana ay boobeen hanti badan balse eedeymahaasi ayaa waxaa beeniyay mas'uuliyiinta dalka Angola labadii toddobaad ee la soo dhaafay kumanaan qof oo intooda badan ka soo jeeda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ku sii qulqulaya xuduudaha dalkaasi kadib markii lagu qasbay inay isaga qaxaan dalka dariska la ah ee Angola
dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli xukuumadda waddanka Angola ay gaartay go'aan ay isbeddel ugu sameynayso goobaha dheemanka laga qodo ayna uga nadiifinayso dadka ay u aragto inay sifo sharci darro ah u qodayaan dheemanka dalkaasi. saxafi la shaqaynaysa wakaaladda wararka ee Reuters ayaa kula hadashay dadkaasi soo qaxaya gobolka waqooyi ee lagu magacaabo Lukaba. waxa ay dadkaasi u sheegeen wariyaha in booliska iyo askarta dalka Angola ay xoog ku soo galeen magaaladaasi iyaga oo burburiyay guryo boobina alaabo ay ka mid yihiin telefishinno iyo weliba faranjeerooyin, sidoo kalena ku dilay halkaasi dhowr qof oo rayid ah oo mid ka mid ah la sheegay inay gowraceen boolisku. madaxa booliska dalka Angola ayaa se beeniyay dhammaan eedeymahaasi iyo inay geysteen tacadiyo ka dhan ah xuquuqul insaanka. dadka u dhashay Congo ee ka soo qaxaya waqooyi bari ee Angola ayaa sheegay in weeraro waxashnimo ah lagu soo qaaday shaqaalo tiro yar oo kuwa macdanta qoda ah. goobjoogayaal ka soo qaxay goobta la weeraray ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in laamaha ammaanka ee Angola ay xoog ku galeen magaalada Lukaba ayna dileen 10 qof. Saciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star, Burco.